warsan iyo weersan isoo wacee warsan iyo weersan isoo wacee kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiinba kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay wariyaasha ku nool dalka Holland gaar ahaan wariyaashii qaxa ku yimi wadankan oo maanta iyaga isugu yimi arrin ku saabsan in ay wax kororsadaan gaar ahaan xirfadooda saxaafadeed arrinta ah in ay wax kororsadaan wariyaashu waxa ay markaasi ka soo fushay urur la yiraahdo On File oo isagu ka dhisan dalka Netherlands ahna urur wax la qabto wariyaasha ka soo barakacay wadamadii ay ku noolaayeen oo ay dagaalada sokeeye markaasi ka dhaceen waxa iska kaashaday hirgelinta barnaamijkan ama in uu qabsoomo maanta Somali Editors Forum iyo ururkan On File la yiraahdo waxaadna kala socotaan fogaan arag iyo waliba studio film sheek موضوع maanta oo ku saabsan arintaasi waxaan u soo bandhigaynaa wariyaasha nagala qayb galaya waxaan ka bilaabayaa Firdawso Maxamed Cabdulla oo iyadu ka tirsan wariyaasha Firdawso sidee u aragtaa in ay ku suura galayso arinta ah in wariyaasha Soomaaliyeed ee xoojiga ku ah dalka Netherlands ay xirfadooda saxaafadeed iyo aqooneedba ku hormariyaan shaadi aad mahadsan tahay waxaan si koox mahad gaar ah u jeedinayaa On File hay'adda On File iyo Somali Editorial forum oo barnaamijkan ay suurta galiyay marar badan oo isku imaanaynay arrimo quseeya saxaafadda iyo qaabkii marxaladaha saxaafadda Soomaaliya ka jirto wax looga bedeli lahaa laakiin maanta arinta waxay uga duwan tahay maanta anaga wax inaan kororsano u imaanay waana talaabo aad muhiim u ah oo dhiirigelin mudan waana muhiim waxaan u arkaa in arintan ay dad badan oo wariyaal oo wadamada Yurub ama maxay ahayd adduunka ku qaxay oo xirfadoodii mar hore ugu dambeysay ama qaarkood wali sii wada in ay maxay ahayd wax badan u tiri doonto in aan anaga mihnadeena dib u cusboonaysiino oo aan wax kororsano oo wax barano waxay faa'iido kaliya anaga kaliya noomale waxa xataa wax ugu faa'iideynayna dadkii aan ka soo tagnay wariyaasha Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku sugan markalena mahad gaar ayaan celinayaa dadka iska kaashaday qabsoomida barnaamijkan isla su'aashaasi waxaan u bandhigayaa Cabdullaahi Jaamac oo isagu ah milkiilaha fogaan arag website-ka lagu magacaabo Cabdullaahi su'aashaas sidaad u aragtaa runtii waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay'adaha iska kaashaday maanta noo suura galiyay inaan halkan ku kulannay gaar ahaan hay'adda On File oo ah hay'ad ka shaqeysa ama la shaqeysa wariyaasha ka soo qaxay dalalkooda si markaas ay ugu shaqeeyaan ama ay ula shaqeeyaan dhinaca wariyaasha sida ay wax u qabsan lahaayeen iyo Somali Editors Forum oo aan runtii u arkay inay tahay hay'ad markii ugu horeysay oo soo keentay ka fikirtay in waxyaabaha kale oo jira inta laga gudbo kadib loo gudbo sida wax loo qabsan lahaa wariyaasha kale Soomaaliyeed gudaha joogaan meel kasta ha joogaan intay xiriir la sameeyaan kadibna gacan ka siiya ama ka caawiya wax walba ay rabaan in ay ku horumariyaan ama contribution ay u sameeyaan dhinaca saxaafadda inta markaan ka gudbo waxay la tahay in wax la kororsado waa waxa ugu muhiimsan lagu wadi karo howl kasta lagu jira haday media tahay haday wax kala tahayba media Soomaaliyeedna maanta waxa uu u baahan yahay muddo dhowr iyo 20 sano oo burbur lagu soo jiray qaasatan markaan ka dib u fiirino waxa ugu weyn naga maqnaa waxay aqoon dhibaatada Soomaalida ku dhacday hadii loogu geystay qaab media qaab kaleba waxa ay muhiim u tahay sida loo heli lahaa aqoon dheelitiran oo wariyaasha Soomaaliyeed ee shaqeeya ay ku garan karaan mas'uuliyadda saaran marka waxaan isleeyahay waa wax aad loogu farxo in wariyaasha Soomaaliyeed maanta ay halkan wada imaadeen ku wada qanacsan yihiin inay hal meel ka wada duulaan wax runtii aanan wax kale lagu raadinaynin oo ah waxa kaliya la rabana in la soo imaado lagu wada shaqeeyo hal magac lagu hor fariistay hay'adaha caalamiga ah jira sida On File oo kale maanta markaan u imaano anagoo wariyaal Soomaaliyeed ku socda magaca Somali Editors Forum waxay muujinaysaa in wax kasta oo ku dhex jira saxaafadda Soomaaliyeed ay dhamaatay gacan weyn ay ka geysan karaan sida marka loo soo celin lahaa in la wada shaqeeyo waxna la wada qabto waan u mahad celinayaa wariyaasha ka soo qayb galay iyo dhamaan inta diyaar ku ah inay nala shaqeyso si aan u gaarno mustaqbal Soomaaliyeed oo media Soomaaliyeed loo gaarsiin karo wax qabad muuqda adduunkana aan uga qayb qaadan karno sida media xurriyadiisa loo gaari lahaa meesha ugu fiicneeda Soomaalida ay saga kaashan leed meel kasta joogaan waa tahay su'aashaasi oo ah in ay wariyaasha ku nool dalka Netherlands ay wax kororsadaan
cabdiraxmaan suubi wuxuu ka mid yahay wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho ka soo shaqeeyay ku nool dalka Netherland cabdiraxmaan sidee u aragtaa inay iyagu wariyaasha gaar ahaan ay wax u kororsadaan maadaama wadankii ay ka soo tageen wadan kale ay yimaadeen ay ku yihiin marti ama qaxooti ay ku yihiin baan dhahnay sidee iyagu wax u kororsan karaan isla markaas uga faa'iideyn karaan wariyaasha kale oo aan kaga soo tagnay dalka hooyo Soomaaliya runtii aad baad u mahadsantahay Shaadiya aad iyo aad baan maanta horta ugu mahadcelinayaa ururada iska kaashaday inay isku keenaan intaan saxafiyiina aan filayo qaarkood inaysan is arkin muddo sanado ah marka intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa Somali Editorial Forum iyo waxaan u mahadcelinayaa hay'adda ONVL oo ah hay'ad waddanka Netherland ka dhisan isla markaana ah hay'ad wax u qabata saxafiyiinta dhammaan wadamada dagaalada iyo dhibaatooyinka ay ka jiraan oo ay Soomaalidu ka mid tahay annagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay maanta inoogu soo bandhigeen waxa ay noo qaban karaan iyo sida ay wax noo bari karaan waana arrin aad iyo aad aan ugu faraxnay oo aan soo dhaweynay runtiina waxaan dhihi lahaa hal maalin oo kaliya uma baahno saxafiyiinta in waxay u baahan yihiin training badan in loo sameeyo oo waxyaabo badan oo ka maqan loo kordhiyo runtiina si weyn baa looga faa'iideysan karaa ama ha ahaato kuweenan halkan jooga ama ha ahaato kuwa aan ka soo tagnay Soomaaliya jira dhibaatadii aan ka soo tagnay shalay ku shaqeynaya runtiina waxaan dhihi lahaa waxaan ka faa'iidnay waa wax aan ugu sii faa'iideyn doono walaalaheena iyaguna u baahan faa'iidada anaga aan helnay runtiina sida anaga u baahanahay ka sii dan ugu sii baahi qaba inay u helaan waana mahadsantiin dhammaantiin ansiyo iska dhigin Cali Daahir Ciid oo isagu ah gudoomiyaha hay'ad media oo ah urur ka shaqeeya horumarinta saxaafadda Cali sidaad u aragtaa arrintan ah inay wariyaashu iyagu wax kororsadaan wixii ay kororsadeenna ay uga faa'iideeyaan wariyaasha kale ee Soomaaliyeed oo Soomaaliya maadaama ay dhibaato iyo burbur ku jirto mahadsanid Shaadiya marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa ururada soo agaasimay munaasabadan sida ONFI iyo Somali Editorial Forum marka xigta aad aan ugu faraxsanahay maanta intaan wariyaa inaan ugu nimaadno inaan aqoonteena siyaadin in badan oo Soomaalida kamid ah waxay nagu dhacaydayaan nagu eedeeyaan in aqoonteena xagga saxaafadda aysan dhisnayn arrintan guul bay noqonaysaa inaan isku nimaadno aan aqoonteena aan kor u qaadno marka waxaan rajaynayaa arrintan inay tahay arrin bilow wanaagsan sidaan aan kusii wadno ilaa aqoonteena aan gaarsiino heer aan isku filnaano oo mahadsan tahay Bile Gurxan waa isagu gudoomiyaha Somali Editorial Forum kana tirsan wariyaasha qurbo joogta gaar ahaan kuwa ku nool dalka Netherland isla su'aashaasi sidee wariyaashu wax ku kororsan karaan wixii ay kororsadeen uga faa'iideyn karaan wariyaasha kale ee iyagu baahida aqooneed leh ومحسن تاي شادية iyo dhammaan wariyaasha ka soo qayb galay kulankan maanta halkan ka dhacay oo ONFI iyo Somali Editorial Forum wada qayb qaadayeen kadaan ka hadlo marka ugu horeysa sida maanta kulankan ku dhacay waxa waa Somali Editorial Forum waxay isugu yeertay wariyaasha kale inay ka faa'iideystaan fursad loo hayo oo ay u hayso ururkan ONFI waxaan ku casuunay in wariyaasha baahida aqooneed u baahan yihiin la rabo in la baro inay meesha ka sheegtaan waana alxamdulillah haddii maaragtay ay gudbiyeen waxay u baahnaayeen suurtagal inay tahay mar dhow maaragtay u bilowdo programkaas tan kale baahida waxbarashada wariyaasha Netherland iyo kuwa gudaha ku jira labadaba waa arrin loo baahan yahay qof intuu nool yahay inuu wax kororsado kaliya maahan kaliya qofku inuu waqti kaliya haysto laakiin waqti kasta xirfadda ay ku jirto waxay u baahan tahay inaad update ku samaysid wariyaasha Netherland waliba waxay u baahan yihiin inay maaragtay bartaan iyagoo jooga waddan horumaray iyagoo jooga waddan waxbarasho taalo inay ka faa'iideystaan dadka dhex galaan mehniyadda mehniyadda ay haystaanna inay maaragtay uga faa'iideeyaan marka wax bartaan ka bacdi Soomaalida kale ama wariyaasha kale ee jooga gudaha waddanka waana arrin aad u fiican wariyaasha halkan yimidna maanta aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa aan ku hadlayo magaca gudoomiyaha magaca ururka Somali Editorial Forum
waa mahadsantahay isla su-aashaasi waxaan fikir ka aruurinaynaa wariyaashii iyo qaabka markaasi ay ugu talagaleen inay uga faa'iidaystaan mashruucan aad soo qabanqaabiseen waa cabdullaahi xuseen taajirow oo isagu ah markaasi guddoomiyaha qubanaha.com website-ka la yiraahdo ee markaasi ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo kuwa bulshadaba cabdullaahi taajirow isla fikirkaaga ku aadan in ay wariyaashu wax korsadaan wixii ay korsadaanna ay wariyayaasha kale uga sii faa'iideeyaan waa mahadsantahay shaadi maxamed cabdi su-aasha haddana waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabo intaanan ka jawaabin waxaan u mahadcelinayaa sida asxaabteeda ay ugu mahadceliyeen hay-adda qaxootiga wariyaasha qaxootiga ah ku nool waddanka Netherlands inta badan diiwaan gelisa isku keenta iyo weliba ururka Somali Literacy Forum oo nagu casuumay kulankan qiimaha badan inaan maanta aan ka wada qayb galno anagoo ah wariyaal dhowr ah oo Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa waddankani isla markaasna aan is arkin inta badan wariyaasha qaarkood sida soo bulshada is arkin waxyaabaha aan ka faa'iidnay haddii aan usoo laabto halkan oo on file iyo Somali Literacy Forum ay noogu talagaleen maanta oo ay on file na weydiisay maxaa rabtiin oo u baahan tihiin in la qabto oo aad barataan waxaan sheegnay waxyaabaha annaga baahida noo ah oo aan rabno inaan baranno waanu ku faraxsannahay in markii ugu horeysay inta hay-adna soo horfariisato nidaam maxaa rabtaan maxaa la baraa annagana aan jeedino waxyaabihii annaga u baahneen oo markaas aan u aragnay inaan rabno inaan ka faa'iideysano waana fursad noo aad u weyn oo macnaha aan ka faa'iideysanayno haddii aan usoo laabto arrinta kale ah in waxyaabihii aad barataan ama sideed ugu gudbin kartaan dhalinyarada kale Soomaalida saxafiyiinta ee Soomaaliya ku nool dabcan waxaan filayaa in experience fara badan oo annaga halkaan aan ka helna ama aan ka heli doono in walaalaheena Soomaalida ee ku nool Soomaaliya journalistayaasha inaan u gudbin karno oo wax badan aan bari karno waayo marka aad fiiriso Soomaaliya iyo meesha hadda annaga aan ku noolnahay xorriyadda saxaafadda wax badan farqi badan baa u dhaxeeya Soomaaliya hataa haddii aanan qaldaneen dadka Soomaalida muddo ma aqoonin waxa la yiraahdo freedom of expression ama xorriyadda saxaafadda haddii waxa laga yaabaa inaad haddii Soomaaliya kala adoo joogo war aad sheegtid in lagu yiraahdo maxaa la yiraahdaa in warkaan aad sheegtay anagu na dhibaya ama qabiilkeenu dhibaya ama anagu si gooni noogu yahay laakiin waxaa u malaysaa inaan dadkii markay halkan yimaadeen ama Soomaaliya training badan loo qabtay ama halkan loo qabtay in faa'iido badan aan la laaban doono dadka u sheegi karno wuxuu yahay freedom of expression waxa uu yahay waxay tahay saxaafadda in xorriyadda saxaafadda waxaan filayaa in doodana maanta halkan ka dhacday aan si aad ah ugu faraxsanahay isla markaasna wax badan warsan iyo weersan isoo wacay